Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada barnaamijkii ma ogtahay Isniinta. Ma ogtahay Nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa oo dhan uu hal mar soo xajiyay. Ma ogtahay in saxaabigii Cusmaan bin Cafaan radiyallahu canhu Ilaahay ka raali noqde uu ahaa ruuxii ugu horeeyay ee xifdiyay Qur'aanka Kariimka marka laga reebo Nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Ma ogtahay magaalada barakeysan ee Madiina al-Munawwara uu ahaa magacii hore ee loo aqoon jiray Yathrib. Ma ogtahay in internetka loo yaqaanay magaca ARPANET oo macnaheedu yahay Advanced Research Project Agency Network halka hadda loo yaqaano internet. Ma ogtahay in waddanka Jamaica uu leeyahay 120 webi. Ma ogtahay magacyada qaaradaha adduunka ay ku wada dhamaadaan xarafka ay ka bilowdaan. Ma ogtahay markabkii jacaylka Titanic lagu sameeyay Belfast. Ma ogtahay in geel uusan ku dhalan Kuruska. Ma ogtahay in gaargacankii ugu horeeyay caalamka lagu sameeyay China. Ma ogtahay in kaneecada mideeda dhidig oo qura wax ay qaninto. Ma ogtahay in Sacuudi Carabiya aysan lahayn wax webiyo ah. Ma ogtahay in quraanjadu aysan hurdi inaba. Ma ogtahay in taybka la hindisay 1829kii. Ma ogtahay in Iceland ay tahay waddankii ugu horeeyay ee sharci ka dhiga ilmi iskaridista sanadkii markuu ahaa 1935. Ma ogtahay in cilmi baaris ay dhawaan si wadajir ah u sameeyeen khubaro ka kala socota jaamacadda University of L'Aquila ee ku taala dalka Talyaaniga oo kaashanaya xeeldheerayaal ka socda macadka lagu magacaabo Lipton Institute of Tea ayaa daboolka ka qaaday cabitaanka koobka shaaha oranjiga oo aad maalin walba cabto in uu ka hortagayo khatarta qaaditaanka cudurrada halista ah ee ka midka yihiin wadne xanuunka iyo macaanka. Ma ogtahay in Qur'aanka Kariimka lagu sheegay lafdiga adduunya 115 jeer. Mise ogtahay in Qur'aanka Kariimka lagu xusay al-aakhira 115 jeer. Ma ogtahay in masaajidkii ugu horeeyay Islaamku uu yeesho inuu ahaa Masjidu Quba. Mise ogtahay in shaygii ugu horeeyay oo Allah abuuray inay ahayd samada. Haddaba intaas ayuu ka eegyahay mawduuceen ma ogtahay Isniinta. Tan iyo muuqaalka saxiinta kulmi doona xanigeetiga sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.